بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan akhyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada mar kale tabaniya taxliilin gaar ah oo ku saabsan wararka gobolka bariga dhexe iyo xiisadaha isrogrogaya madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa caawa afka furtay oo si aad ah weerar afka ugu qaaday nidaamka Israa'iil waxa uu leeyahay kooxaha xaq jirka ah haddii aan gacanta laga qaban dunida gobolka bariga dhexe ayay doonayaan qatar weyn oo halis ah inay geliyaan muxuu dareemay Erdogan maxay tahay walaaca uu xilligan muujinayo caawa si gaar ah ay u lafagurayaan warbaahinta carabta sheeko gaar oo arrintan la xiriirta ayaan barnaamijka idinku sheegi doonaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu muddo dheer oo aamusnaana kadib caawa waxa uu ka hadlay isfahanka dhexmaray dowladda Mareykanka iyo Iran laakiin waxa uu leeyahay innaga teena gaarka ah ayaa noo taala Mareykanka isaga oo baa la heshiiyay dowladda Iran Israa'iil ma awoodi karaysaa inay ku dhacdo weerar iyo dagaal si gaar ah ula gasho dowladda Iran maxay tahay hadallada caawa ay la fagurayaan warbaahinta ay sida weyn iminka u soo baxayaan wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiyana waxa uu ku dhawaaqay shir gaar ah oo la xiriira wadamada qaliishka iyo dowladda Iran carabtu waxay fahmayaan dhibaatooyinkii ku dhacay dagaalka intii uu ka socday gobolka bariga dhexe haddana carabta iyo waliba Iran ayaa yeelan doona shir gaar ah oo ay heshiisyo ku gaari doonaan yaa magdhow la siin doona ma Iran oo wadankeeda looga soo duulay jihooyinka qaliijka mise dowladda Iran oo garaacday wadamadaasi ayaa bixin doonta xaalmarin iyo waliba magdhow wadamadaasi ay helaan si gaar ah ayaan qodobkaasna ugu lafaguri doonaa barnaamijka caawa wasiirka muraha dibadda wadanka Turkiga Hakan Fidan waxa uu qaaday tallaabo reer galbeedka mar kale indhahooda soo jeedisay muxuu ka doonay wadanka Canada yuusa halkaasi kula kulmi doonaa maxay Turkiga markan hordhigayaan wadamada reer galbeedka waxaan ku horeynayaa tallaabo dowladda Sacuudi Arabiya ay qaadayso intii la socotay dagaalkii ka holcayo gobolka bariga dhexe waxa uu muujiyay awoodda dowladda Iran ay leedahay iyo tabarta iyo taagta wadamada carabtu ay leeyihiin gaar ahaan kuwa qaliijka ee xulufada iyo bahwadaagta la ah dowladda Mareykanka dowladda Iran awoodeedu waxay ahayd in ay meeshii ay rabto carabta ay garaacaan si gaar ah waxa loo garaacay dhowr wadan oo ka mid yahay wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta maalmihii la soo dhaafay dowladda Iran hadalla ayaa ka soo baxay oo ay tilmaamayeen in gobolka bariga dhexe dowladaha yaalo oo kaliya ay hadda xaaladani ka dhaxayso loona baahan yahay in ay la yimaadaan mowqif iyo afkaar ka bedelan dowladaha doolka ah ee gobolka cagaha soo dhigay hadalladaasi haba ugu badnaadaan inuu jeedinayo Maxamed Baaqir Qalibaf haddana Sacuudiga caawa waxay ku dhawaaqeen inay qabanayaan shir xasaasi ah oo ay ku heshiinayaan dowladda Iran iyo wadamada qaliijka haddaba telefishinada qaar ayaa arrintan daboolka ka qaadaya aan eego ila wareedyada soo baxaya ila diblomaasiyadeed ayaa shaaciyay in la filayo in boqortooyada Sacuudiga ay martigelin doonto shir muhiim ah oo dib u heshiisiin oo dhaxmari doona dalalka qaliijka iyo Iran kadib dagaalada iyo xiisadii dhawaan ka dhacday gobolka bariga dhexe sida ay sheegayaan wararka shirka ayaa lagu qaban doonaa magaalada Riyadh waxaana diiradda lagu saari doonaa hagaajinta xiriirka u dhaxeeya Iran iyo dalalka deriska ah ee qaliijka iyadoo sidoo kale ay suuragal tahay baalidi in ay ka qayb galaan dhinacyo kale oo gobolka ah kulamadan ayaa si gaar ah madax badan wada hadallo u yeelan doonta taasi oo u dhaxeeya heshiiska hadda la filayo gobolka bariga dhexe in uu ka dhaco Mareykanka markii wadamada carabta uu dagaal ku furay isagoo baa hadda Iran isfahan la gaaray dhinaca kale wasiirka muraha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa ku booqasho ku tagay baaliri dalka Oman si uu gogol xaar ugu sameeyo wada hadallada ku saabsan mustaqbalka maamulka istiraatiijiga ah ee gobolka ama biyaha Hormuz wada hadallo xasaasi ah oo ku saabsan Hormuz ayaa waxa yeelan doona sida ila xog ogaala ay sheegeen Qatar, Oman, Iran iyo Iraq iyo dalal kale oo qaliijka waxay ka wada xaajoonayaan habka loo maareynayo marinkaasi oo ah halbowlaha ugu muhiimsan ee maraakiibta shidaalka iyo gaaska ee adduunka
wararku waxay intaasi ku darayaan in dalalka qaliijku ay doonayaan in aan wax canshuur ah lagu soo rogin maraakiibta isticmaalaysa marinkaasi halka Iiraanna ay ka fiirsanayso xiriirada iyo ilaalinta deegaanka amniga iyo waliba hagista maraakiibta halkaasi isticmaalaya. Oman oo Hormuz ku dhawaaqday caawa in la furay ayay sidoo kale warbaahinta gobolku faaqadayaan. dowladda Masqat waa Oman waxay ku dhawaaqday in ay sii furi doonto marinka Hormuz iyadoo aan lagu soo rogin baalidi wax maraakiibta halkaasi maraya qarashada. waxa kale oo la dejiyay laba marin oo muhiim ah oo ku meel gaar ah si loo xaqiijiyo maraakiibta halkaasi isticmaalaysa. sidoo kale Oman ayaa kaashanaysa baalidi hay'adda caalamiga ee badaha si loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa maraakiibta xilli ay ku jiraan caqabado amni oo ka taagan gobolkaasi. haddaba markaad fiiriso dowladaha carabtu waxay hadda u doonayaan Iiraan in ay heshiis kula gaaraan waxay tahay intii dagaalka gobolka bariga dhexe uu soconaya waxa ay waayeen marin iyo jiha shidaalkooda ay ku eebiyaan. taasi waxay dhalisay dhaqaalihii adduunka inuu saameyn ku yeesho iyana ay galaan xaalad aad u adag oo qallafsanaana. xitaa qaarkood waxaa la sheegay in raashinkii ay quudanayeen iyo waliba waxyaabihii nolosha daruuriga u ahaa in ay heli waayeen. qallaasihii ka dhacay dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil iyo dalka Iiraan ayaa si weyn u saameeyay marinka Hormuz taasi oo keentay hoos u dhac ku yimi isu socodka maraakiibta ganacsiga iyo kororka walaaca laga qabo baalidi suuqyada tamarta ee adduunka. ka hor xiisadahaasi ku dhawaad 5 meelood 2 meel shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dunida ayaa ku jiray baalidi xaalad aad u adag sabab la xiriira arrinta Hormuz. Iiraan oo dalalka qaliijka u soo bandhigtay iskaashi waa mid ka mid ah waxyaabaha hadda indhaha sida aadka loogu hayo. dowladaha qaliijka in muddaaba waxa loo soo bandhigayay in ilaalinta amnigooda qowmiga iyo kobcooda dhaqaaluhu uusan ku xirnayn dowladda Mareykanka. gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iiraan Maxamed Baaqir Qaalibaaf ayaa sheegay in Tehran ay diyaar u tahay in heshiisyo amni iyo iskaashi dhaqaale ay la gasho wadamada dunida islaamka gaar ahaan kuwa qaliijka. waxana uu sheegay in dagaalka ugu dambeeyay uusan ahayn kaliya iska horimaad military balse uu qayb ka ahaa isbedel weyn oo ku socda awood qaybsiga adduunka loona baahan yahay carabta intay goor tahay in ay fakaraan oo indhaha ay kala furaan. haddii kale meel lagu kala tagay ayay barqacad arki doonaan iyagoo fadhiya. wadahadallada Mareykanka iyo Iiraan ee sii socda ayaa qaabeynaya isbedelka caalamka gaar ahaan gobolka bariga dhexe oo ah barta loolanka adduunka iyo waliba meesha ugu dhaqaalaha badan caalamka marka la fiiriyo tamarta. dhinaca kale dowladda Pakistan ayaa xaqiijinaysa baalidi wadahadallo farsamo oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan in dib loo bilaabo toddobaadyada soo socda. halka hadalkan ayaa sidoo kale muujinaya xilli hakad ay ku jiraan lagu tilmaamay mid ku meel gaar ah heshiiskii dhinacyadu ay muhiimka ahayd in ay hadda gaaraan. kadib aamusnaan dheer oo muddo ku jiray ra'iisul wasaaraha nidaamka gacan ku samayska ah ee gobolka bariga dhexe Benjamin Netanyahu ayaa caawa waxa uu ka hadlay is-afgaradka dhexmaray dowladda Mareykanka iyo waliba dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. waxa uu tilmaamay marka la fiiriyo dowladiisu inay haatan wajahaysa caqabado aad u ballaaran loona baahan yahay in wadankaasi ay ka fakaraan isbedelada iyo istiidooyinka gobolka sida aagga Gaza, marinka Rafah, dhulka Lebanon iyo xiisada kala dhaxaysa wadanka Iiraan. waa sida Netanyahu uu tilmaamay. ra'iisul wasaaraha nidaamka Israa'iil ee Netanyahu ayaa hadallo kulul ka jeediya baalidi shir ay yeesheen maamulka maxalliga ah ee nidaamkaasi isagoo sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto joogitaankeeda military ee koonfurta Lebanon isla markaana weeraradu ay ku qaaday Iiraan ay ka hortagayaan Tehran in ay hesho hub nuclear ah sida uu doodiisa caawa u dhigay. Gaza ma jirto mana jiri doonto ayuu ku yiri hadal uu ka jeediyo goobta. Netanyahu waxa uu muran badan dhaliya ayuu ka jeediyay goobtaasi oo ah qorshaha lagu dhisayo garoon diyaaradeed oo cusub oo u dhow marinkaasi Gaza
isagoo ka jawaabaya warbixin ay sheegaysay in goobta la qorsheeyay ay ku dhowdahay halkaasi. wuxuu yiri Gaza ma jirto, mana jiri doonto, wax ka harayana ma jiri doonaan, gacanteena ayay ku soo wada ururi doontaa, ayuu mar kale hadalkiisa ka sheegay. hadalkan ayaa si weyn looga falceliyay maadaama uu ka hadlayo mustaqbalka magaaladaasi oo burbur laxaad uu ka soo gaaray dagaaladii Israa'iil ee ku qaaday. wali waxaan geli doonaa buu leeyahay aagga Rafax oo ah halka loo asteeyay inay ka galaan gaadiidka sida gurmadka iyo sahayda gargaarka ee loogu talagalay shicibku dhibaataysan ee dagaalada iyo colaadaha ay halakeeyeen ee halkaasi loogu gacan qabtay Israa'iil. Netanyahu ayaa sidoo kale xasuusiyay muranka ka dhashay weerarka ay ciidamada Israa'iil ku galeen buu yiri aagga magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, waxana uu sheegay in uu iska indhatirayo dhibaatooyinka uga imaanaya Mareykanka, isagoo sheegay in madaxweynaha Mareykanka ama madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha hadda Donald Trump ee Israa'iil geli doonaan baaliyay Rafax inkastoo ay jireen walaacyo Mareykanka uu ka qaba arrimahaasi. hadalladaasi ayuu dib u daliishaday ra'iisul wasaaruhu. waxa uu sheegay inuu aad u ixtiraamayo balse aanan lahayn buu yiri doorasho kale. haddii loo baahdo cidiyahayaga ayaan ku dagaalami doonaa, ayuu ku yiri, isagoo markaasi macnihiisu yahay waynu ka kaaftoomi doonaa haddii Mareykanka xitaa uu dagaalka nala geli waayo. dhinaca koonfurta Lebanon marka uu ka hadlaya waxa uu yiri si kasta oo ay Iiraan u waalanayso innaga kama bixi doono dhulkan koonfurta Lebanon ku yaala. waxa uu yiri inta aan ra'iisul wasaaraha ahay Israa'iil way joogi doontaa aagga amniga ee koonfurta Lebanon. hadalkan waxa uu u muuqdaa mid ka hor imaanaya dadaalada diblomaasiyadda ee gobolka ka soconaya ee laga yaabo xiisadda dagaalka in ay lagu xalliyo, hase ahaatee hadda mar kale ayaa walaac u imaanaya. weerarka Iiraan iyo xiriirka Trump ayaa waxa uu iminka yahay mid isku sidkan. tilaabo kasta oo Israa'iil ay isku adkayso, ciidamada ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ayaa weerar geli kara, halka Trumpna ay ka burburi doonto nabadii uu ka shaqeynayay ee gobolka Bariga Dhexe. Netanyahu waxa uu sheegay in uusan fasax ka codsan madaxweyne Donald Trump ka hor weeraradii Israa'iil ay ku qaaday Iiraan, balse uu kaliya ogeysiiyay qorshaha dagaalkaasi. sida uu sheegay uma tagin Trump si aan ogolaashiyo uga helo in aan weerar qaadayo, balse waxaan u sheegay qorshahayaga. nasiib wanaagna ugu dambeyntii waa uu nagu soo biiray, oo markii horeba Trump ma ahayn cidda dagaalka rabtay oo innaga ayaa ogeysiinayna inaan weerar qaadi doono. warar ku saabsan xiisadda u dhaxaysa Trump iyo Israa'iil ayaa aad u qabsanaya warbaahinta, iyadoo ra'iisul wasaare Netanyahu dooda caawa uu banaanka keenay ay tahay mid walaaceeda leh. dhinaca kale warbaahinta Mareykanka ayaa soo bandhigay xogo ku saabsan khilaafyada hore u dhaxmaray Netanyahu iyo Trump intii lagu guda jiray wada hadalladii lagu soo afjarayay dagaalkii Gaza ee sanadkii hore. buug cusub oo ay qoreen saxafiyiin caan ah oo Mareykan ah ayaa waxa ay ku sheegeen in Trump uu si umar yahay baa layiri Israa'iil in ay tallaabooyinkaasi laga hor istaago, laakiin tallaabo kasta Israa'iil qaado waxay ka dhigan tahay meel ka dhac Trump diblomaasiyadda lagu sameyn doono. haddii aan eego gobolka wararka ka imaanaya telefishinka TRT ee wadanka Turkiga ayaa caawa ku waramay in madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan kadib weerarkii Netanyahu caawa uu ku qaaday heshiiska gobolka Bariga Dhexe iyo waliba deegaanadii hore loogu sheegay ciidamada Israa'iil inay ka baxayaan ay diideen. waxa uu isna ku tilmaamay kooxda mayalka adag inaanu madaxooda warmarin. hadalka Netanyahu ayaa xitaa hadalka Erdogan aan idhaahdee xitaa waxa uu ka fog yahay luqadda diblomaasiyadda. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in koox yar oo xag jira oo ka jira Israa'iil ay ku doodayaan in hubka uu laga aamusi waayo gobolka Bariga Dhexe, isagoo carabka ku adkeeyay in Turkiga uu sii wadi doono taageerada dhammaan dadaalada lagu doonayo nabadda iyo xasiloonida gobolkaasi. hadalka Erdogan ayaa waxa uu ka jeediyay
kulan ay isugu yimaadeen mudanayaasha xisbiga talada haya ee cadaaladda iyo horumarka ee AK Party ee wadankaasi Turkiga kaasoo ka dhacay magaalada Ankara. Turkigu waxa uu sheegay in uu kasbaday miisaan weyn oo caalami ah halka Israa'iilna ay hoos u sii dhacayso ayaa lagu yiri warbixinta. Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uu hadda bilaabay in uu gurto miraha siyaasadda iyo dadaalada uu waday sanadihii la soo dhaafay isagoo xusay in dalkiisa uu saameyn weyn iyo miisaan koror ballaaran ku yeeshay heer gobol iyo heer caalami. Waxa uu sheegay in Ankara si sax ah u fahamsan tahay isbedelada ka socda nidaamka caalamiga isla markaana ay ku maareynayso siyaasadda ku dhisan xigmad iyo aragti fog oo dawladdu ay leedahay. Dagaalka Iran iyo waliba doorka wadanka Turkiga ee dhinaca diblomaasiyadda ayuu sidoo kale caawa Recep Tayyip Erdogan ku dhawaaqay isagoo tilmaamay wadankiisa in uu haatan rajo weyn ka qabo isbedel inay yimaadaan. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dagaalkii u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca iyo Iran oo dhinac kale taagneyd uu muujiyay awoodda siyaasadda ee arrimaha dibadda ee wadankiisa. Waxa uu sheegay in Ankara ay ku guuleysatay inay ka fogaato dagaalka iyadoo adeegsanaysa siyaasad ku salaysan caqli, dhaxdhexaadnimo iyo cadaalad. Erdogan ayaa sidoo kale xusay in Turkiga uusan ogolaan baalidi in muwaadiniintiisa waxyeello ka soo gaarto dagaalada isla markaana uusan ku dhicin waxa uu ku tilmaamay isku dayo lagu horinayo colaad iyo waliba kala qaybsanaan gobolka. intaasi kadib si aada ayuu u garaacay diblomaasiyad ahaan Israa'iil waxana uu ku tilmaamay meel ay majaraha u hayaan koox mayal adag. Erdogan ayaa dagaalka ka dhanka ah Iran ku tilmaamay mid ka mid ah colaadaha ugu qatarsan tan iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. Waxa uu sheegay waxaan ognahay in Israa'iil aysan xamili karin xitaa fursadda bayri ugu yar ee nabadda lagu gaari karayo. sidaas darteed colaad iyo nabadda Israa'iil meel u roon ma jirto. sidoo kale waxa uu ku eedeeyay siyaasiyiinta iyo kooxda Israa'iil inay ku tartamayaan xagjirnimo iyo horinta colaadda isagoo sheegay in qaar badan oo kamid ah aysan doonayn dagaalada in ay istaagaan. eedeymo ku saabsan carqaladaynta heshiiska ayuu mar kale caawa Erdogan hadalkiisa ku celiyay. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay kooxa uu ku tilmaamay in muddo 10 maalmood ay isku dayeen inay fashiliyaan heshiiska iyo dadaalada diblomaasiyadda ee lagu gaaray wada shaqaynta horumarsan. waxa uu sidoo kale tilmaamay in kooxahaasi ay rumaysan yihiin in amnigooda uu ku jiro xasilooni darrida dalalka dariska ah isla markaana ay ka dhigteen buu yiri xog iyo qasaare siyaasadeed oo aad u xoogan. Turkiga waxa uu taageerayaa nabad waarta ayuu ku yiri khudbadii xasaasiga ahayd ee maanta. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ku adkaystay in nabadda iyo xasiloonida gobolka ay ka hirgeli doonto inkastoo ay jiraan buu yiri caqabado isku dayaya in lagu hor istaago. waxa uu yiri haddii nabadda gobolka ka dhalanayso waa dhalan doontaa haddii xasilooni darri la gaarayana way hirgeli doontaa inkastoo ay jiraan kicino iyo waliba caqabado nabadda lagu diidan yahay ayuu ku yiri hadalkiisii maanta. ugu dambeyntii Recep Tayyip Erdogan waxa uu xaqiijiyay in Turkiga uu ka faa'iideysan doono fursad kasta oo lagu gaari karayo nabad isla markaana uu sii wadi doono taageerada dadaalada lagu raadinayo xal waara oo loo heli karo buu yiri khilaafaadka sii xoogaysanaya ee ka taagan gobolkaasi. isla wararka Turkiga iyo arrimaha gobolka ayaan ku jiray qeybta ay nala socotay. wasiirka muraha dibadda ee wadankaasi Hakan Fidan ayaa booqasho ku gaaray dalka Canada isagoo kulamo la qaadan doona madaxda wadankaasi. waxyaabaha ugu weyn marka laga yimaado xiriirka labada dhinac meesha sida gaarka loo eegi doono waa amniga iyo xiisadda gobolka bariga dhexe. sida uu ku waramayo telefishinka TRT ee dalka Turkiga wasiirka muraha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa u socdaalay dalka Canada halkaasi uu ku tagay booqasho rasmi ah oo socon doonta 2 maalin. booqashada ayaa looga gol leeyahay xoojinta xiriirka laba geesoodka
iyo ballaarinta iskaashiga istiraatiijiga ah ee labada dal. Waxa uu booqan doonaa xarunta tamarta nuclear-ka ee dalkaasi. Sida ay sheegayaan wasaaradda amuraha dibadda Turkiga, Fidan waxa uu safarkiisa ka bilaabi doonaa magaalada Toronto, halkaas uu ku booqan doono xarunta tamarta nuclear-ka ee dowladdaasi. Ujeedada booqashadaasi ayaa si dhow ugu kuurgalaysa khibradda awoodda Canada ee dhinaca tamarta nuclear-ka, taas oo Turkiga uu danaynayo in uu ka faa'iideysto mustaqbalka. kulamo ganacsi iyo dhinacyo kala duwan ayuu la yeelan doonaa xubno wasiirada Canada ka mid ah. kadibna warshada wadahadalo istiraatiiji ah ayaa ka dhici doona magaalada Ottawa, sida telefishinka TRT uu caawa sheegay. maalinta labaad ee booqashada, Fidan waxa uu u safri doonaa caasimadda Canada ee Ottawa, halkaas uu kula kulmi doono wasiirka amuraha dibadda ee dalkaasi. waxyaabaha iska wadaarsan doonaan kulanka waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka diblomaasiyadda, ballaarinta ganacsiga, arrimaha amniga iyo difaaca, iskaashiga tamarta iyo tiknoolajiyadda, iyo sare u qaadista xiriirka labada dal in la gaarsiiyo iskaashi istiraatiiji ah, taasoo ka dhigan Turkiga in uu hadda bilaabayo waxyaabo aad u ballaaran uu doonayo inuu ku hormariyo guud ahaanba noloshiisa iyo waliba jiritaankiisa mustaqbalka. khiyaarta inala socotay tabintii caawa iyo lafagurka wararka caalamka iyo diblomaasiyadda.